tani waa qiso aad u xanuun badan oo ku dhacday aabbo muslim ah balse aabbahaasi wuxuu muslimiinta ka codsaday in dadka muslimiinta ah meel kasta ay joogaan u soo duceeyaan gabadhiisa. maxaa dhacay? aabbahan wuxuu dhalay gabadh ay hooyadeed dhimatay balse isagu wuxuu guursaday xaas kale oo ay carruur dhashay. isaguna wuxuu aad u jeclaa gabadhiisa. gabadhan waxay ku noolayd guriga eeddadeed oo aabbaheed ilmaha u dhashay balse eeddada gabadha waa ay necbayd oo aad u necbayd. waxayna nula dhaqmi jirtay sida qof shisheeya oo kale ah, waayo ma aysan dhalin, dareen hooyanimona ma ay tusin. maalin maalmaha ka mid ah aabbihii wuxuu isku diyaariyey safar oo uu dibadda ku aado. waxaana u sheegay gabadhiisa in muddo ah inuu soo maqnaanayo oo uu soo laaban doono. wuxuuna sidoo kale u sheegay in mar walba uu soo wici doono una soo diri doono lacag iyo wax walba oo ay u baahato gabadhiisu. maxaa dhacay kadib? aabbihii wuxuu aaday safarkiisii shaqo. maalmo kadib gabadhii waxaa moobeylkeedii ka qaaday eeddadeed. waa moobeylkii laga soo wici lahaa oo aabbaheed uu siiyey. waxayna u sheegtay haddii ay aabbaheed u sheegto in ay baahi ku dili doonto oo ay ciqaabi doonto. mar walba aabbaheed ay la hadlayso eeddadeed ayaa ku khasbi jirtay inay u sheegto aabbaheed inay haysato nolol aad u fiican kulana nooshahay eeddadeed. lacagtii uu aabbaheed u soo diro waxaa ka qaadan jiray carruurta eeddadeed. gabadhii midabkeedii waa uu isbeddelay, way niyad jabtay. baahi darteed hal waqti oo keliya ayaa wax la siin jiray. subxaana allah. aabbihii waxaa u maqnaa muddo aad u fara badan oo 5 sanno gaadhaysa. kadib aabbihii ayaa soo baxay, weliba isagoo hadyado fara badan u soo iibiyey qoyskiisii oo aad u jeclaa. balse safarkiisa uma uusan soo sheegin qoyskiisa. lama filaan ayuu ku soo duldegay. cajiib! markii uu guriga yimi xaaskiisii magaalada ayay ku maqnayd, waxaana guriga joogay carruurtiisii oo keliya. waxa uu weydiiyey, aaway gabadhaydii? carruurtii ayuu ku yidhi. waxay u tuseen gabadhii oo qol keligeed ku xidhan. waa fiirin kari waayey gabadhii oo sidan loo galay oo midabkeedii xitaa uu isbeddelay. wuxuu weydiiyey, maxaa sidan kuu galay aabbo, isagoo ilmaynaya. balse iyada ma hadli karaynin, keliya way ilmaynaysay. aabbihi ayaa ku yidhi carruurta, maxaa ku dhacay? gabadhan ii sheega. balse iyaga ayaa u sheegay arrintii. ilmihii waxay u sheegeen in sida tan ay u gashay hooyadood ayna ciqaabtay. odaygii wuxuu la cararay gabadhiisii uu aadka u jeclaa isagoo murugaysan oo ilma ka qubanayso. waxaana uu geeyey cusbitaalka. qoladii dhakhaatiirtu waxay u sheegeen inay muddo sannada aysan gabadhani cunto fiican cunin, jidhkeedina uu qalalay, ayna ku jirto halis. waxaana loo sheegay wixii dadaal ah inay bixin doonaan, balse uu ka codsaday ummadda muslimiinta ah inay u soo duceeyaan. ducooyin fara badan oo dadka muslimiinta ah ay u duceeyeen, isagoo goobaha social mediyaha ku faafiyey in duco lagu soo dhoobo, ayaa ummadda muslimiinta ahi u duceeyeen. tanina waa caqabadaha ay ka mid tahay ilmaha marka hooyadii dhimato eeddadiisa korsata hadba siday ula dhaqanto. mahadsanidin.